kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ee deegaan channel TV haddii jaraale waxaad naga dhageystaan bartaan ku leenahay YouTube-ka aaladaha social media ayaa iyagana naga heli kartaan daawadayaal maanta oo ay tahay 6 bishii 9aad ee 2018 barnaamijkeena faaqidaada wargeyska oo aad u xiiso badan waxaan ku soo qaadan doonaa maxaa ka jira in ciidamada Soomaaliland ay fadhigoodu yahay gobolka Sool ay ka geysteen tacadiyo muddadii 10 sanadood ahaa ay gobolkaasi deganaayeen waxaan idinku haynaa daawadayaal barnaamijkaasi oo ay kamarada telefishinku qabatay kadib markii ay saraakiisha ciidamada Soomaaliland ugu sareysa qaar kamid ah lagu eedeeyay inay tacadiye ka geysteen gobolkaasi waqtiga ay halkaasi u joogeen nabad ilaalinta iyo hawlgallada military daawadayaal hadaba barnaamijkan oo aynu ku soo qaadanayna saraakiishaasi oo uu kamid yahay sarkaalka ka goostay Soomaaliland ee Puntland ka dhigtay bayska military ee la yiraahdo Cornel Caare oo ay ku eedeynayeen saraakiisha qaar kamid ah inay ka geystay halkaasi ayaa waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan waxyaabaha loo aanaynayo inay geysteen ciidamada Soomaaliland waana kan barnaamijkii oo dhameystiran daawasho wanaagsan daawadayaal haddaba warbixintan maanta gadaal aynu ka erki doono ee taliska guud ee ciidanku soo saaray kuna eedeynaya Cornel Caare inuu dambiye ka galay dadka rayidka ah ee degan gobolka Sool ayaa haddaba waxaanu ku bilaaban doonaa horta si aynu ogaano Cornel Caaraha ka goostay Soomaaliland marka uu gobolka Sool joogay wixii uu ka shaqayn jiray iyo hawlaha uu qaban jiray waa kan isagoo u jooga dhexdhexaadin beelo walaalaha oo isku dilay halkaasi hadaladiisii iyo goobahaasina waxaa ka mid ahaa muuqaaladiisii waynaga jiraan xagga buraha dalkoodana waynaga jiraan magaalada ciidanka qaranku ku hareeraysan yahay jihad kasta oo ciidan beeran fadhiyo wuu ka jiraa ciidanka qaranku xagga wadada xirxir waa jiraa xaggan waa jiraa xagga wuu jiraa halkana waa arkaysaano waanu isku fadhinaa alxamdulillaah rabbil caalamiin nabadgelyaan ku wada nool iyadoo aanay ahayn العيدما بيانا دو urursan oo jabhadaayinta ilaa ma fadhiyaan waxaan ku daynay inaan cuqaalayno aan team military marin waxaan ku daynay inaan la walaalowno iyaga waxaan ku daynay inaan ka xakamayno magaalada labada beerood dumareeyoga waa yara fududayno waxaan mar haday maxas yihiin ha ka adeegtaan wax soo galaan labada ciidan marka ay ka adeeganayaan askar baan ku dar isku inay mar soo wada galaan waan ka xakamayno الحمد لله رب العالمين إله بنا مهدله بشهر رمضان إلهي وحنا أسطورينا من كل هذا هلك كل سود وهذا ساعة توصل اللي بارنو تريها قيبت سكري كوبات لما هو سود ويننا جمع فرم بعيد كنت سود ويننا يا وهوي عيدا نبض إيراننا أو أكتينو عيدا كي قرنكا ama ay saraakiisha imika soo socotaa in daawan doona ay qirayaan inuu Cornel Caare u geystay dad rayid oo degan gobolka Sool tacadi maxaa hore loogu qaban waayay waxaana imika la isweydiinayaa maxaa ciidanka Soomaaliland u baaritaan ugu sameyn waayay qaladaadkaasi haddii ay hore uga dhaceen ciidamada oo ay dadka rayidka waxyeello soo gaadhay waana kuwan saraakiisha oo faahfaahinaya qaladaadkii halkaasi ka dhacay waqtiyadii ay ciidanku halkaasi ku sugnaayeen ama ha sameeyo Cornel Caare ama kuwa kale weli ma jirta cid loo maxkamadeeyay waana arrin ay imika tahay in ciidanku baadhaan oo ay dadkii rayidka ahaa waxyeeladu soo gaadheen ka siiyaan raali gelin buuxda waxaana hadaladii saraakiisha maanta ay ku eedeynayeen Cornel Caare u dhignaayeen sidan badan cadaalad ruuga teedad markaan Cornelka Caare iyo ka sheego wuxuu ahaa marka ugu horeysa sarkaalkii dawladdu ama ciidanka uu xushay dhinaca hawdka dagaalka ka socday qayaadiga baharsame gultooyinkii badnaa halka la geeyay sarkaalkii hawlgelinta hogaaminayay waa oo dawladda wakiilka iyo ciidanka wakiilka uga ahaa intuu hawsha ku jiray waxaa laga soo sheegay jiray tacaddi fara badan iyo inuu dad badan qoriyo ka mursaday iyadoo ciidanku taa u og yahay oo arrintaasi ay caddahay ciidanku arrintaa uu daboolay si magaca ciidanka qaranka aan u xumaan barnaamijkii labadii bishii saddexaad 2017 wuxuu nin ganacsada oo fadhiya muxuu ahaa magaalada Kalabayd ee gobolka Sool
ku haysta maqaasiin qaad ayuu weeraray oo ciidan geliyey waxaa goobtii ku dhintay 4 nin 4 nin baa goobtaa ku dhintay saa darteed waa la soo xidhay burca lagu soo xidhay maadaaba uu gaay kiis muxuu ahaa ciqaaba muxuu ahaa qodobka 434 muxuu ahaa xeerka ciqaabta qofkii wax dila ayuu ka eedaysnaa ciidankii qaranku soo burco ficil sameeyey wuu ka soo saaray meeshii waxaa la keenay miiskan saraakiishu hadda aynu joogno halkanaa lagu soo xidhay si maadaaba uu ahaa sarkaal dee ciidanka ka mid ah oo sarkaal sare ah aanu maxaabiista ugu dhex jirin inta uu garsugaha yahay isagoo halkaa ku xidhan waxaa culays soo saaray siyaasiyiin iyo odayaal muxuu ahaa waa isagoo kiiskii galkii sidii u yaala kiiskii furayay baana dalacsiiyey waxaana laga dhigaa baanduulaha qaybta 3aad ee sanaag in keliya uga saxeeyey meesha iyadoo halkaa joogo ayuu si ikhtiyaara u goostay si ikhtiyaarkiisa wuu ka goostay ciidanka qaranka markuu ka goostay kama fogeen wuu u muuqanayay wax tallaabaa kama muuqaalin isagoo tixgelinaya markaa nabadeyntii iyo dhibaatadii meeshaa ka jirtay oo labada beelood oo uu isagu ku milmay oo ka mid noqday garab ka mid ah iskii u baxay wuu iska tegey wuu ka baxay de waxa wey waa nin ka fallaagoobay muxuu ahaa somaliland puntland buu u galay jabhad buu ku dhawaaqaya saldhig halkaa ka jira iyadoo ay sidaa tahay iyadoo haddana muxuu ahaa la eegayo mar walba sida waa isagaa cadaalad darro loo sameeyey isagaa cadaalad darro laguma sameeyo isagaa loo sameeyey cadaalad darro laakiin laguma sameeyo cadaalad darro isaga arrintu saas weeye ugu qabtay xarunta miiska saraakiisha ciidamada qaranku ku hareeraysan yahay jihad kasta oo ciidan beeran fadhiyo wuu ka jiraa ciidanka qaranku xagga wadada xirxir waa jiraa